shir lagu hergelinayo qorshaha ee Soomaaliya kula wareegayso ammaanka dalka oo dib u habeyn lagu sameeyay kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen xafiiska ammaanka qaranka ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka dhacay Muqdisho sida la sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socda dowladda federaalka Soomaaliya, wakiilo matalaya dowlad goboleedyada, gobolka Banaadir iyo saaxiibada Soomaaliya ka taageera dhanka amniga. dib u habeynta qorshaha Soomaaliya si buuxda saaxiibadeeda dhanka amniga ka taageera ugula wareegayso mas'uuliyadda sugidda amniga dalka oo ay muddo kala shaqeynayeen ayaa maanta la isku raacay hergelintiisa iyada oo 31 bishan qorshaha laga hergeli doono golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. qorshahan ayaa dhabaha u jeexaya soo afjaridda magaca howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyada oo la isku raacay in magaca howlgalka uu noqdo howlgal ku meel gaar ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS si buuxda loo soo gabagabeeyo sanadka soo socda 2024. dhanka kale waxaa la isla meel dhigay halbeegyada ee hagaya waajibaadka shaqo ee howlgalka ATMIS, qorshaha gabagabeynta howlgalka iyo qorshaha bixinta ciidamada iyada oo la raacayo hagidda iyo jihaynta dowladda Soomaaliya. kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. iyo waliba TV-yada Soomaalida dhammaantood. kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet. rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid. HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. qanciye aniga waa qanciyay, adiguna ma ku qanciyay.